Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maanta waxaan rabaa inaan idiin soo jeediyo qisada boqortooyada Balqiisa. Waqti aad u fog oo taariikhda ka mid ah waxaa jiray boqortooyo weyn oo barwaaqo ah oo la oran jiray Saba. Boqortooyadan waxay ku taalay dhulka maanta loo yaqaan Yaman, waxayna ahayd meel hodan ah oo leh beero qurux badan, qasriyo waaweyn iyo ciidan xoog leh. Boqortooyadaas waxaa xukumi jiray haweeney caan ku ahayd caqli, xikmad iyo hoggaan wanaagsan. Haweeneydaas waxaa la oran jiray boqorad Balqiisa. Balqiisa waxay ahayd boqorad aad u caqli badan, dadkeeda way jeclaayeen. Boqortooyadeeduna waxay ahayd mid horumarsan, waxay lahayd carshi aad u weyn oo qurux badan, waxaana hareeraheeda joogay talo-bixiyeyaal iyo madax boqortooyo. Laakiin inkastoo ay lahayd boqortooyo weyn, Balqiisa iyo dadkeeda waxay samayn jireen hal qalad oo weyn. Waxay caabudi jireen qoraxda halkii ay Ilaah ka caabudi lahaayeen. Hudhud iyo Nebi Suleymaan. Maalin maalmaha ka mid ah, Nebi Suleymaan calayhi salaam ayaa kormeeray ciidankiisa oo ka kooban dad, jinni iyo shimbiro. Markuu shimbiruhu tiriyay, wuxuu waayay shimbir la yiraahdo Hudhud. Nebi Suleymaan wuxuu yidhi, maxaan u arki waayay hudhudkii? Haddii uusan cudurdaar cad keenin, waan ciqaabi doonaa. Yar kadib, hudhudkii ayaa yimid, si kalsooni leh ayuu u hadlay. Wuxuu yidhi, waxaan ogaaday waxaadan ogeyn. Waxaan kuu keenay war xaq ah oo ka yimid dhulka Saba. Halkaas waxaan ka helay haweeney boqorka ah, waxayna la siiyay wax walba, waxayna leedahay carshi weyn. Hudhudkii wuxuu sii sheegay, laakiin iyada iyo dadkeeda qoraxda ayay u sujuudaan halkii ay Ilaah ugu sujuudi lahaayeen. Warqaddii Nebi Suleymaan. Nebi Suleymaan wuxuu go'aansaday inuu boqoradda u diro warqad, wuxuuna hudhudkii ku yidhi, warqaddan u gee boqoradda, kadib eeg waxa ay ka jawaabto. Hudhudkii ayaa duulay ilaa uu ka gaaray qasrigii Balqiisa, wuxuuna warqaddii ku riday qolka boqoradda. Markii Balqiisa akhriday warqaddii, waxay aragtay inay ka timid Nebi Suleymaan. Warqadda waxay ku bilaabanaysay, bismillaahi raxmaani raxiim, ha iga kibrina ee imaada idinkoo muslin ah. Balqiisa waxay ahayd boqorad xikmad badan, isla markiiba ma aysan qaadan go'aan. Waxay u yeertay madaxda boqortooyada oo waxay tiri, bal talo i siiya arrintan. Raggii waxay yiraahdeen, annagoo xoog ciidan weyn baan leenahay, laakiin go'aanka adigaa leh. Xeeladii Balqiisa. Balqiisa waxay ogeyd in dagaalku uu keeni karo burbur, sidaa darteed waxay dooratay xeelad. Waxay tiri, boqoradu markay magaalo soo galaan way kharribaan, sidaa darteed hadiyad ayaan u dirayaa Suleymaan si aan u arko jawaabtiis. Hadiyadda waa la diray, laakiin markii ay gaartay, Nebi Suleymaan wuu diiday. Wuxuu yidhi, ma maal baad igu kordhinaysaan? Waxa Ilaahay i siiyey ayaa ka khayr badan waxa aad keenteen. Kadib wuxuu ku amray inay laabtaan carshigii Balqiisa. Markii Balqiisa u soo socotay Nebi Suleymaan, wuxuu yidhi, yaa ii keeni kara carshigeeda ka hor inta aysan imaan? Jinni xoog leh ayaa yidhi, aniga ayaa kuu keeni kara inta aadan fadhigaaga ka kicin. Laakiin nin aqoon leh ayaa yidhi, aniga ayaa kuu keeni kara ka hor inta aadan indhahaaga soo laabin. Isla markiiba carshigii ayaa hortiisa yimid. Imtixaankii Balqiisa. Nebi Suleymaan wuxuu amray in carshiga waxyar laga beddelo. Markii Balqiisa timid, wuxuu yidhi, ma sidaan ayuu u egyahay carshigaaga? Balqiisa waxay ahayd haweeney caqli badan, si degdeg ah uguma jawaabin haa ama maya. Waxay tiri, waxaad mooddaa inuu yahay. Jawaabtaas waxay muujinaysaa garasho iyo xikmad weyn. Islaamnimadii Balqiisa. Kadib, Nebi Suleymaan wuxuu tusay qasri dabaqiisa muraayad yahay oo biyuhu hoos marayaan. Markii Balqiisa aragtay, waxay u malaysay biyo, waxayna kor u qaaday dharkeedii. Suleymaan wuxuu yidhi, tani waa qasri muraayad laga sameeyey. Markaas ayay Balqiisa garatay runta. Waxay tiri, Rabbiyow, waxaan dulmiyey naftayda, waxaan islaamay anigoo la jira Suleymaan, Ilaahay caalamka.